asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walbo aad kaga sugan tihiin daafaha caalamka waxaan idin leeyahay kusoo dhowaada janalkayga emras waxaa si sharaf leh lagaaga codsanayaa haddii aad ku cusub tahay janalka emras in aad subscribe saarto aadna sheer garayso si aad ula socoto barnaamijyada aan halkaan ka dayn doono ama aan isleenahay bulshada soomaaliyeed waa ay u baahan tahay. janalkan emras ma aha mid lagu caayo qabiil, mid lagu caayo ama lagu aflagaadeeyo shaqsi. justi waxaan diiradda saaraynaa wadaniyadda iyo arrimaha bulshada sida ay u arkaan ummadda soomaaliyeed in uu yahay janalkan janal ka shaqaynaya arrimaha iyo danaha qaaska ah ee soomaaliya quseeya. haddii aanu nahay dhalinyaro maynaan soo arkin dowlad, maadaama aanan dowlad soo arkin oo qofku markuu dalkiisa kasoo tago oo yimaado qaaradaha kale ee caalamka waxaad la kulmaysaa wax badan oo aad la cajabto. marka janalkeena waxaan ugu hadalnaa badanaa arrimaha amniga dalka, sidee amniga dalka loo sugi karaa, sidee dhalinyaradu isku kaashan karaan, sidee wax loo wada qabsan karaa. marka caawa barnaamijkan ka hadlaya waxa uu yahay arrimihii ka dhacay beled xaawo iyo dhammaan arrimaha soomaaliya wixii aan isleeyahay way habboon tahay in loo gudbiyo shacabka soomaaliyeed. daawadayaal, sida aada og tihiin maalmihii lasoo dhaafay waxaa qalalaaso ama dagaal ka jiray xuduudda beeneedka ee u dhexeysa soomaaliya iyo kenya, xadka beled xaawo iyo mandheera, degmada mandheera. ciidamo ku abtirsada jubbaland oo hoostaga wasiirka amniga ee jubbaland janan ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxa ay ku sugnaayeen deegaanka mandheera, iyadoo meeshaasi laga abaabulayay in dagaal lagaga soo qaado ciidanka qaranka soomaaliyeed. balse shalay wixii ka dhacay waad aragteen, ciidankii soomaaliyeed duulaan ayay ku qaadeen deegaanka mandheera iyo xadka inta uu loo wadaago oo dhan, waxaana lagu baacsaday qoladii maleeshiyaadka ahaa ee meesha fadhiyey. balse su-aasha meesha taalaa waxay tahay waxa dagaalamaya waa soomaali. ma liibaanayaashii lagu liibaanay? haddaanu nahay dhalinyaro waxa maskaxda naga haysta waa odayaal. miyaanan odayaasha iska qaban karin? odayaashan dalka qaybinaya ee dalka raba in ay dowlado shisheeye gacanta u geliyaan maanan ka fakeri karin haddii aynu anigu dhalinyaro nahay. waxaan loo baahan yahay in dhalinyaradu iskaashato, isbahaysato. dagaalkii shalay dhalinyaro soomaaliyeeda ku baaba'day, ku dhimatay. meesha lagu dagaalamayo waa dhul soomaaliyeed, mid xoog lagu haysto iyo mid kaleba aniga aan leenahay oo dhulkeena oo xuduud beenaada aanu ku leenahay. miyaan dhalinyaradeena soomaaliyeed aanan ka fakeri karin? ciidamada maleeshiyaadka ee hadda ay ku sugan gaar ahaan mandheera ay hore u galay, ay dowladdu kenya facilitigeeda iyo qarashgareynteeda iyo waxyaalaheeda dhan ay bixinayso. dowladda geeya danay leedahay, danta ay leedahayna ummadda soomaaliyeed oo dhan way wada og tahay. arrimo xasaasi ah baa dhex yaala Soomaaliya iyo Kenya.
kenya mar walba waxay ku andacootaa anigu waxaan haynaa qaxooti tiradiisu intaas ay dhaaftay. qaxootiga tiradiisu haysid horta marka koowaad waxay ku nool yihiin dhul xoog lagu haysto oo Soomaaliyeed. markii labaad waxaad saxiixdaa United Nationka inaad qaabilaysaan qaxooti meel walba adduunka oo ka socdo. marba haddii aad ku jirtid liiska qaabilayaasha qaxootiga adduunka, ma ahan inaad dhahdid 20 sano iyo 30 sano waxaan haynay shacabkii Soomaaliyeed. shacabkii Soomaaliyeed haddaa haysay waxaad ku saxiixday United Nationka in wadamo badan oo Yurub ay ku jirto, America ay ku jirto, Africa iyo qaar ka mid ah dalalka Carabta ay saxiixeen in qaxooti la qaabili karo. markii laga reebo Sacuudiga iyo wadamo kale oo aanan saxiixin oo diiday inay qaxooti qaabilaan. marka ma ahan inaad ku andacootid inaad haysid qaxooti. midda labaad, ammaanka aad sugaysid waxaad ka leedahay dana adig kuu qaas ah. free zoneka aad sheegaysid aad rabtid inaad ku banaysato dhulka Soomaaliyeed, ma ahan dhul beebeen aad kaga samaysan karto free zone. ummadda Soomaaliyeed way soo jeedaa. dhalinyaradu khaasatan waxaa loo baahan yahay jaranjarada nilagu koraayo inaad ka fogaataan. jaranjara nilagu koraa, jaranjarada nilagu koraayin waxay tahay qabiil. qof walbo maanta 15 jir ah ama 20 jir ah hadda maanta wadada kula sheekaysato wuxuu kugu soo hadal qaadayaa qabiil. wax kale soo dan qaasana kama shaqeynayo, dan kalena kama shaqeynayo. maanta meeshaan ku sugannahay waa ogtihiin, waa la soo kala cararay, wadamo shisheeyaa lagu sugan yahay. dadaa maanta soo tahriibayo usoo socda inay meelahan wax fiican yaalaan u maleynaya. marka waxaa loo baahan yahay in la iskaashado oo dhalinyaradu ay ka fakarto maxaa la qaban karaa, dalka sidee lagu hagaajin karaa, sidee ciidamada qaranka Soomaaliyeed loo toosin karaa. in waxyaalahaas laga fikraa loo baahan yahay. looma baahno in qabiil iyo waxyaalo kale la isku dagaalo. ma ahan arrintaas. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed shalay waxay baacsadeen maleeshiyaad uu wato dabadhilif. shuruucda caalamka u taalo haddaad badanaa waa daawataan youtubada qaar waxyaalaha muhiimka ah ee laga hadlo. nin baa sir bas gudbinaya waddan kale u gudbinaya, xabsi daa'ina lagu xukumaa ama waa la daldalaa. laakiin ninka Soomaaliya jooga qabiilka ku faanaya shaatigiisa wacad asigoo shalay Muqdisho ka duulaya ama Puntland ka duulaya ama Baydhabo ka duulaya, wuxuu la kulmayaa Kenya, wuxuu la kulmayaa Ethiopia, wuxuu la kulmayaa Imaaraadka. taasay waa lagu faraxsan yahay. haddana dad waxaa waay caqliga ka dhintay, caqliga aan ka dhimanay. anagu dhalinyaraan nahay, meeshaan dalkii waan wax ka tari lahayn, waxbarashana lagu soo abaabiyeyna ma jirto. waxaa waaye wax noo soo qabtay ma jirto. waan ku weynaanay, weynaanta aan ku weynaanay qori ku qaadanay, qorigii haddana ummadda iska kulaynaa. waxaa waaye waa laga fiican yahay in ilaahay la xusuusnaado. waxaa waaye dad muslimiin ah sheeganaa muslimnimadeena inaan ku toosno oo muslimnimadeena aan maxaa la dhahaa aan ka dhabayno aa loo baahan yahay. maanta waxa caalamka haysto waa ujeedaan cudur aa ku faafay. alxamdulilah ilaahay anaga waa naga hayaa. ma arkaysidba qof Soomaaliya cudurkaas ku dhacayo ama qof muslim ah hal iyo labo la sheega Iiraan ah. balse waxaa loo baahan yahay in gacmaha la isqabsado. dhalinyarada la hadlaa oday 50 kor u dhaafay, I don't care about him. 25 to 34 aan la hadlayaa iyo wixii kasii sareeyo ilaa 40 iyo xoogaa. laakiin oday 50ka madaxa kula jira adeero Soomaaliya waxaa waaye inaad ka fadhiisatid aa ku dhaanto. talada aad bixinaysidna ay ahaato talo dhalinyarada anfacda. dhalinyarada Soomaaliyeed ha ka xishoonina inaad qabsataan farsamada gacanta. adduunka wuxuu ku taajiray farsamada gacanta. beeraha waxyaalahaasoo dhan waa la qaban karaa, laakiin ha ka seexanina. wax waa baratay, haddaa wax baratay oo shalay 4 sano aa jaamacad soo dhamaysay aadan shaqo haynin, bal isku day inaad shaqada adi abuuratid oo meesha hoose aa kasoo bilaabatid. amniga dalka aa ka shaqaysid,
dad baa waxay ku leeyihiin dalkaaga waa gubanaya oo gobollada qaar ku nool waxay ku leeyihiin dalkaagaaba meeshaada muqdishoaba gubanaysa meel hebel maxaa ka qaban kartaa muqdisho hadday gubanayso way hagaagaysaa shalay say ahayd maanta ma aha maanta say tahayna beri ma ahaanayso muqdisho waa hooyadii ummadda soomaaliyeed dad badan baa maanta sheeganayo oo ku leh waxaa anigu meeshaasaan ku dhashay dhiiggayga ku baaba'ay maxaa la dhahaa waa kusoo barbaaray waxaa la dhahaa waxyaalo badan kan qabri bayax maa la lahaa jooga low yacadde raaskambooni ilaa raas casayr meel walbo siyeelo soomaali walbo muqdisho waa leeyahay qof ka xigta ma jirto dadka meelaha gaarka iskugu mamacaabayo soomaaliya soomaali baa leh male kala xigo ummad yahay kan dhibaatada wado gurigaaga uu kasoo toosaa hooyoy kan dhibka wado gurigaaga uu kasoo kacaa hadduu wiilkaaga yahay gudbi sheeg warkaaga hadduu maqli waayo iska gudbi wax kuuma aha koos hadduu qof soo dilo gurigaaga kusoo noqdo adiga gabaad kuu yahay waxaa waaye waa laga fiican yahay waa arrin aada u xun adiga wiilka dhalinyarada ahee ee ku sugan soomaaliya ama ku sugan dalalkan yurub adeerow haddaad soo tahriibtay oo rafaad iyo dhibaato aad soo martay maanta meelaha ku niikniikinne waalidkaaga iyo dadkaaga waxtar wax baro haddaadan waxbarasho rabinna shaqayso oo dalkii waxtar jasta adduunyadan waxaa waaye inaad allahaga ka cabsato aadna xamaalato wajacalna alleyla libaasa wajacalna annahaara macaasha nothing else macaashka keligiisa kuma jiro inaad xamaali un gashahoodo cibaadayso marka waxaan leeyahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed arrin aada u fiican ayay qabteen jubbalandne haddii aysan dowladdu aqoonsanayn dowladdu ayuu faraha looga qaado because wasiirka arrimaha gudaha looga baahan yahay wixii arrimaha gudaha ee soomaaliya inuu asiga ay xakameeyo laakiin maamul goboleed wax madaxweyne allaho ma jiraan dalka hal madaxweyneu leeyahay hal ra-iisul wasaareu leeyahay nothing else kuwa kale waa barasaab gobol waay jarmalka intaasoo wuxuu leeyahay meel wax ka sheegaysa maa booliiskeedii waa hal lacagteedii waa hal waxyaadahel oo dhan waa hal marka adigoo muslina soomaaliya oo isdagaalaya oo isdilaayo oo dhibaato isku geysanaya waxaad dib ugu noqotaa wadamadii africa ee islaayay oo maantana heshiiska ah ku noqo for example waxaa mar walba for example waxaa kugu filan dalka rwanda hutu and tutsi islaayay haddana heshiiska adduunka ka dhexeeya waa la heshiiyey dowladaa la wadaagay wadamada africa ugu quruxda badanay maanta ka mid tahay soo lagama fiicno marka in anaga aan isa fiirno qabiil iyo qorna isku fiirno oo adduunyadane where you come from marka loo Somalia Mogadishu ma la soo xasuusahay Somaliland ma la soo xasuusahay Puntland ma la soo xasuusahay Jigjiga ma la soo xasuusahay meelaha kale aad isku magac darteen oo aad calaamadeedu wadataan we have one calankaasana anfaca laakiin where you come from Somalia Somalia caasimadeeda Muqdisho kugu soo dhacayso Muqdisho waa hooyadii dalka marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed dowladda hala taageero ya waajibun calaykum waajibaad idinku tahay inaad taageertaan qabiilka aad ku faanaysaan iyo waxyaalaha aad ku faanaytaan iska daa calankaaga Soomaaliyeed taageer gabaryahay quruxda badan ee Soomaaliyeed iska daa qabiilka laablakaca iyo waxyaalaha qaar dad badan oo Facebook soo fadhiisto caaytamaha jira ee madaxweynaha qabiil ahaan u caaya waxaasi waa laga fiicanya ha la isku badnaado Dixado
soo barnaamijkayga halkaas ayaan ku soo koobayaa waxaan leeyahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walbo aad dunida ka joogtaan channelkeena Emras waxa laga codsanayaa inaad subscribe saarto like and share waxa loo baahan yahay inaan anagu isbaysano isbahaysi baa loo baahan yahay oday ha fiirinin dhalinyaro isku tashta wax kala idin leeyahay ma jirto walaalkiina Soomaaliyeed baan ahay isku tashta meel walbo aad dunida ka joogtaan ha la isku tashto waxaan idin leeyahay wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh